xillo dhawaan suuqyada magaalada Gaalkacyo la ka diiday lacagta shilin Soomaaliga ayaa haddana booqasho mayba ka saadana gudoomiyaasha degmada Gaalkacyo ayagoo si wada jirana baaqiyaanka dari ganacsatada ka sugan suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee dhinaca Galmudug Xirsi Yuusuf Bare iyo kan degmada Maxamuud Yaasiin Tumay ayaa mayba si wada jir baaqanka dareen ganacsatada ka sugan suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo ayagoo sheegay intii lacagta shilin Soomaaliga la laba maalmood la soo dhaafay magaalada Gaalkacyo propaganda lagu abuuray dhaqaalaheedii jahwareer baa la geliyay dadkii masaakiinta ah oo lacagaha kaashka watay baa la dhibaateeyay arintaas waxaan sheegaynaa dadweynaha propaganda been ay ahayd oo suuqa la soo geliyay dhammaan sariflayaalkii iyo kuwa xoolaha ka ganacsanayay iyo kuwa badeecadaha kala gidsan gada ee reer Gaalkacyo labada dhinac waan soo marnay xaaladaasna waxaan isla afgaranay in caadi lagu soo celiyo laga bilaabo saacadan cidii lagu arko oo sicir ka gadisan wax gadaysa ama lacagta Soomaaliga ah wax lagu kala gadan jiray diidaysa waa la xirayaa tilaabo sharci laga qaadayaa arrin la soo geliyay suuqa oo khalkhal abuuraya xagga sarifka iyo lacag Soomaaliga oo lagu jahwareerinayay dadka rayidka iyo danyarta arrintaasi saakay markii aan sameynay kormeer waxa ogaanay inay ay tahay wax khalkhal ka keenay meel kale qaado la xirayo la maxkamadeynayo arrintaas sidaas aan ku dhamaysanay waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha iyo ganacsatada oo runtii si fiican noo aqbalay kamid ganacsatada ayaa mayba la hadlayna warbaahinta ayagoo sheegay in lacagta shilin Soomaaliga ay qaado doonaan lacagta shilin Soomaaliga diiditaanka ayaa mayba saameyn ku weeldaas dadka danyarta ee ka dhaqan suuqyada magaalada Gaalkacyo sicirkiisa ugu horeeyay wixii intaas ka badan shacbigu ay xor u yihiin inay ka dacwoodaan ma ciidamada amniga iyo labada maayirna waraaqadooda aan u geyn doono haddaan nahay ganacsatadii insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa sicirku sidiisa hore inuu noqon doono dadweynaha waxaan u sheegaynaa cid kasto sicir bar lagu keeno inay ciidamada amniga iyo maayirada la xiriiraan halkaan maanta shir jaraa'id baa lagu qabtay suuqa weyneed oo Gaalkacyo oo aan kala ahayn laba gedi oo isku dan ah oo dhibaatada maanta suuqa ka jira isku soo ay u taabanayso waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxda maamulada labada dhinac oo gudoomiyaha dhinaca Galmudug iyo duqa Gaalkacyo dhinaca Puntland oo shir jaraa'id halkaan ku qabtay qaabkay uga hadleen dhibaatada suuqa ka jirta aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dadweynaha haddaanu nahay ama ganacsatada nahay waxa weeye arrintaa waa soo dhaweynaynaa waxa weeye dhibaatadii soo socotay oo Soomaaliya ku dhacday oo ku absatay tii ugu xumayd weeye sababtoo ah Faysal Wadani telefishinka caalamiga Koonfur Galbeed Gaalkacyo